sanadkii 2011 markii dalkeena la saaray ee la yidhi lama tegi karo muqdisho lama iman karo ee abaari ina haysay ee dagaal uu jiray ee macaluul xumi ay jirtay wuxuu ahaa dawladda Turkiga iyo shacabka Turkiga uu matalayay markaasi prime ministerkii oo maanta ah madaxweynaha dawladda Turkiga intuu yimid uu halkaa ka soo raacay airportka baabuur caadi ah ku yimid magaalada Xamar ku yimid ee waliba soo maray meelo dad barakacayaala baahi xumi ka jirto isdhex taagay isaga iyo xaaskiisa oo midba ilmo yar oo Soomaaliyeed kor u qaaday taariikh aan iloobi karna maaha taariikhan iloobi karna maaha waxa weeye kolkaasi innaga dawladda Turkigu waxay inoo tahay walaal saaxiib iyo ehel muddo dheer soo socday weeye